qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay habkii ay ula dhaqmeen madaxda safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya oo ay ku eedeeyeen inay ka hor istaageen ka qaybgalka munaasabad lagu soo dhaweynayay madaxweynaha Soomaaliya oo lagu qabtay hotelka Leko Regency ee magaalada Nairobi. qaar ka mid ah dadkaasi oo la hadlay TV-ga RTN ayaa sheegay in safaaraddu ay ku kacday hab maamuus aad u liita iyadoo dadkii haystay kaararka casuumaadda banaanka lagu celiyay halka kuwa aan haysan wax casuumaad ahna gudaha loo sii daayay. waxay ugu baaqeen madaxda sare ee dawladda Soomaaliya inay ilgaara ku hayso talaabooyinka noocan ah ay madaxda safaaradda Soomaaliya ee Kenya ay ku dhaqmaan. sidoo kale xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo saxafiyiin ayaa laga hor istaagay inay ka qayb galaan munaasabadaasi iyaga oo watay casuumadihii rasmiga ahayd ee loogu talagalay in lagu galo munaasabada. bismillahirrahmanirrahiim waa ujeedaan sida dadnimada xumada ee loo agaasimay bahasha dadkana ay banaanka u taagan yihiin askartuna xoog ay noo isticmaalayaan noola diiday inaan xafladda ka qayb galno madaxweynahana aan soo dhaweyno waa aragtaa protocol xumada meesha ka jirta dadkii waan ku rafaadnay nambaradii baan dirnay dadka leen baan gelinay markaan leen gelino wax walba aan sameynayna waxaana la ku yiri wax la idin fasaxaya ma leh invitationada kulligood waa wada wataan waa kaasa aniga kamid ah oo mas'uul Soomaaliyeed ah oo aad u jeedaan tiimbaraha invitationkana aan wato noola diiday wax walba aan sheegnay in ka aqbalay wallahi qiimeyn xumo waaye Soomaalidu waxay tiraahdaa nimaan talin jirin hadduu taliyo nimaan tagi jirin ayaa tagay waxa meesha ka muuqdana waa ujeedaa protocol xumo waaye saana nama qabato sumcad iyo sharafan dawladda Soomaaliyeed ku leenahay inaan ixtiraamay ahayd telefoonadii aan ku dhageysanayaa wax walba aan dirnaa nalka institutionka dawladda dalkan u matalayso waxay ku feel garowday in ay dadka si habsami leh ay u casuumaan waxaan ku suganahay waxa weeye hotelkii madaxweynaha qaranka farmaajo lagu soo dhaweyn lahaa waxaan garbeena taagana waa dadkii Soomaaliyeed ee u soo baxay inay madaxweynaha soo dhaweeyaan ee kaararka haystay lagu galayay weeye waxa aan ku eedeynaya waxa weeye muwaadin ahaan aniga oo dawladdeeda taageersan waxa aan ku eedeynaya waxa weeye safaaradda ayaan ku eedeynaya iyo cidda abaabulka u qaabilsan ayaan si gooniya ugu eedeynaya maxaa yeelay waxyaalaha dhalinyarada loo sii deyn waayay kaararka wata waxa ka mid ah in lagu eedeeyo oo la dhahay waxa la foojar gareeyay kaararka ayaa la foojar gareeyay cidda foojar gareysayna waa safaaradda ayaa la dhahay waxaan xogta ku haynaa inay ay bixiyay ilaa 700 oo kaar la bixiyay laakiin 2000 in ka badan la haysto hoolkii waa bixsamay la yiri dad munaasib aan hayna way ku jiraan safaaradda hadaan nahay dhalinyaradii firfircoonayd ee xaafadda Islii hadaan nahay dhalinyaradii jaaliyadda Soomaaliyeed hadaan nahay safaaraddu hore waxay u diiday inay dhismato jaaliyad Soomaaliyeed inay dhismato oo isku xiran ayay hore u diiday haddana waxay rabtaa inay dadka iska horkanto waxaan rajaynayaa safaaradda sidii kuwa horeba loo bedelay in loo bedelin doono muwaadin Soomaaliyeed اللي كانوا دونا ما تكرر كودي أقول للهاي الانفلتيشن أما عالسنات مدحوينه هذا أيضا الصواب كان عيسجين وديري وحي قصة بينيا أما كو أذينيا والسفارة يوم ما لحظة أرضها أرضها الصومالية أما جامعة مدوا أرضها جامعة الصومالية نمكم مجعاب يا رهان نك جاهنوب لنا حبيب نك جاهنوب لنا وحلا بقول سفارة مواطنين الصوماليين الله صوم جعبه مواطنين الصوماليين هل السجارسي جاهنوبنا وحلا أيضا السيرة دبلوماسيين أيضا اللي بعدين أيوب قرب تاعنا وكسر بدي وكقرب تاعنا وكو هذا واسكر واسكر وحلا ما tan iyo markii dawladani ay timid safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ma lahayn wax safiir ah waxaana ugu dambeysay ambassador Jamaal Maxamed Xasan oo noqday wasiirka qorsheynta xukuumadda haatan jirta iyada oo muddo 22 bilood ku dhow aan la soo magacaabin wax safiir ah taasoo keentay in shaqada safaaradda ay noqoto mid aad u liidata. Cabdishakuur Farax Igale RTN magaalada Nairobi.